calaykum walaalaha wahalka nolosha ku soo dhawaada maanta iyo mowduuc kale oo ku saabsan muhiimadda nolosha maanta qofka waxaa qaali u ah waqtiga uu haysto dadka badankiisu waxay lumiyaan diiradda waqtiga iyagoo caajisaya waana sababta keentay inuu mid guulaysto midna uu guuldareysto baro inaad ku raaxaysato daqiiqad kasta oo noloshaada ah kagana faa'iideyso waxyaabaha aad adigu jeceshahay ha ku oran ii soo noqo waqti kaa tegay maalmo cusub ayaad ku arki doontaa riyooyinkaaga ha ka murugoon shalay waayo waxay burburisaa maanta faa'iidadeeda balse waxaad xasuusnaataa cashiradii shalay uu waqtigu ku baray kana feejignow inay maanta kugu soo noqdaan waqtiga maanta qofna ha qubin qiimihiisa waayo labadiinaba waxaad isku mid ka tihiin alle xaggiisa ha ku qancin waxyaabaha aad ka heshay adduunyada hana ka mid noqon kuwa rajaynaya aakhiro iyagoon shaqaysan ha ka qoomanaynin noloshaadii hore ee bilow hadda oo sida ugu fiican wax u samee noloshaada rajo ka hel oo isku day inaad noloshaada ka dhigato mida ugu fiican mahadsanidin